taageeray musharax xilka madaxtinimo ee Soomaaliya siyaasi Faarax Duxjoog ayaa waxa ka soo qayb galay waxgarad nabadoono siyaasiyiin dhalinyaro iyo haween waxaana lagu qabtay gudaha magaalada Boosaaso. siyaasi Faarax Duxjoog ayaa hore u soo noqday wasiirkii ugu horeeyay ganacsiga xukuumadda ee baa u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo ku-xigeenkii madaxweynihii Puntland waqtigii marxuum Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana uu hadda isu soo taagay qabashada hoggaanka dalka Soomaaliya. dadkii isugu yimaaday hoolka munaasabadu ka socotay ayaa ku tilmaamay injineer Faarax Duxjoog hogaamiye wanaagsan oo xasilin kara hoggaanka dalka oo muddo 25 sano mugdi kaga jirtay shacabka Soomaaliyeed. Axmed Maxamed Ciise Axmed Guray oo kamid ah ganacsatada ka soo jeeda gobolka Gaardafo ayaa sheegay hogaamintu inay ka madax banaan tahay qabiilka si horumar ay u gaaraan ummadda Soomaaliyeed. laakiin qofku hadduu ka shaqeeyo reer hebel baan ahay kanaan ahay Soomaalina wax tari maayo meeshu ka yimid wax tari maayo wax dhibaato iyo dulka fasaadiya wax kale keeni maayo. marka anigu Faarax haddii aan kaftano wax badan oo baanu iska isnaqaanaa oo Faarax oo arday rooti aan kala goosan jiray inkastoo xogaa Faarax naga weyn. marka Faarax anigu barashadiisa haddii aan faahfaahiyo intaasaan kaga haraya waa nin Soomaaliya waa nin dadka kala gurin waa nin Soomaalidu ay mid u tahay waa nin aan beel gaar ah dhinaca saarin. marka taa waxaan qabaa Faaraxna waxay u tahay wax weyn dadka Soomaaliyeedna waxay u tahay wanaag. Maryan Maxamed Xaaji oo ku hadlaysay magaca haweenka goobta fadhiyay ayaa siyaasi Faarax Duxjoog ku amaantay waxqabadkii uu soo qabtay. Faarax Maxamuud Duxjoog magaciisu way igu dheer yahay in badan baan maqlayay laakiin aragtidiisu waxay ahayd maalintan garoonka ku soo dhaweynay. Faarax ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga nagama maqnayne waad noo maqnayd waa wasiirkii hore ganacsiga ee Puntland ku siisimihii dawladii Cabdullaahi Yuusuf. waxaan ku salaamayaa Faarax ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga. gudoomiyaha dalada dhalinyarada Gayaan Gaardafo Abuukar Googooye iyo Xasan Maxamuud Shire oo ku hadlayay ururka Saydo ayaa sheegay inay si wada jir ula shaqeyn doonaan musharax injineer Faarax Duxjoog. waxaan leenahay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Gaardafo siyaasi Faarax Duxjoog soo dhawow dalkaada ku soo dhawow waxaanu ka sugaynaa ummadda Soomaaliyeed reer Puntland reer Gaardafo waxa aad u wado iyo gabi ahaanba gobolada bari waxa aad u wado baan ka sugaynaa. Faarax waa lagu heelan yahay diyaar baa lagu yahay soo dhawow si niyadaha baa lagu soo dhaweynaya waa laga jecel yahay dalka iyo dadka waa ku jecel yihiin. haddaan nahay dhalinyarada iyo hooyooyinka iyo dhammaan inta aqoonyahankana waxa ku ballan qaadaynaa meel walba wax walba naga baahatana waa kula shaqeynaa waana ku fududeena diyaar baa ku nahay siyaasi Faarax Duxjoog. xildhibaan Maxamuud Saalax oo Baraa oo kamid ah golaha deegaanka Boosaaso ayaa sheegay Soomaaliya inay u baahan tahay qof horumar gaarsiiya. siyaasiyiintu waa kuwa laga cawdo ugu badan weeye oo wadanka markay dadka shiriyaan oo loo sacabtumo hadhow markay jagada qabsadaan wax qaribo weeye. siyaasi waxaan leenahay inaa ka duwanaataa laga rabaa dadka Soomaaliyeed waxay rabaan wadada fiican in lagu rido waxa la rabaa in dadka reer Puntland la hogaamiyo khayrka lagu hogaamiyo midnimo Soomaaliyeed in la gaaraa la rabaa taa waxaan rabnaa inaa horseed ka noqoto insha Allah bidnillaahi tacaala. ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray injineer Faarax Maxamuud Duxjoog oo u taagan qabashada hoggaanka dalka Soomaaliya waxaana uu ballan qaaday haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee Soomaaliya inuu horumar gaarsiin doono ummadda Soomaaliyeed. waxaan ballan qaadayaa haddaan ku guuleysto madaxnimada inaan albaabka u furo cid kasta oo Soomaaliya. waxaan u leeyahay waxa weeye abaalka qofku meeshuu ka soo jeedo waxa weeye waa muhiim wixii gacan ku siiya waa inaad gacan siisaa. Soomaaliya waxay u baahan tahay dad aqoon u leh dalka iyo dadka waxay u baahan tahay dad muddo ku soo jiray oo khibrad dheer u leh si ay uga baxdo dhibaatada ay hadda haysatana waxay u baahan tahay juhdi dheer taasna waxa weeye diyaar baan u ahay inaan juhdiga dheer geliyo. gudaha Soomaaliya ayaa waxa dhawaanadanba soo gaarayay musharaxiin u taagan qabashada hoggaanka dalka Soomaaliya xilli ay dhowdahay doorashada Soomaaliya. Soomaaliya ayaa u baahan hoggaan wanaagsan oo isku keena shacabka Soomaaliyeed si looga saaro khilaafka beelaha Soomaaliyeed loona suuliyo colaadda sukeeye. Xamse Cabdirashiid Jaamac warbaahinta SBC magaalada Boosaaso gobolka Bari.